kusoo dhawaada barnaamijka caawiya caalamka qodobada wararkeena ugu waaweyn waxa ay kala yihiin daraasad ay si wada jir ah u sameeyeen hay'adaha Ipsos iyo Farside Africa ayaa lagu sheegay in kalsoonida shacabku ku qabaan madaxda iyo hay'adaha Soomaaliya ay hoos u dhacday waxaanu eegi doonaa sababaha keenay hoos u dhaca kalsoonida shacabka warar kale caawana waxa kamid ah in ka badan 1300 oo ruux ayaa ilaa iminka la og yahay inay ku dhinteen dhulgariirka Indonesia inta badan waxa lagu aasay xabaalo wadareedyo sanad ayaa ka soo wareegatay toogashadii ugu dhiiga badneed ee Mareykanka oo ka dhacday magaalada Las Vegas halkaas oo ay ku dhinteen 58 qof kadib markii uu nin rasaas ku furay dad damaashaaday telefoonno casri ah iyo internet qiimihiisu hooseeyo ayaa dadka Hindiya u sahlaya inay si baahsan filimada uga daawadaan teleefanadooda arrinkan ayaa yana albaabada u furtay suuq faneed xor ah kala soo BBC News Somali telefishinka raadiyaha online-ka iyo baraha bulshada halkani waa London barnaamijkuna waa caawiya caalamka habeen wanaagsan daawadayaal aniga Maxamed Cabdi Xalaal oo idin la socodsiinaya barnaamijka caawa aan ku bilaabe sahan baaritaan ah oo ay sameeyeen hay'adaha Ipsos iyo Farside Africa Research ayaa lagu ogaaday in kalsoonida shacabka Soomaaliyeed ay ku qabaan laamaha dawladda federaalka Soomaaliya amniga dalka iyo dhaqaalaha ay hoos u dhac ku yimid marka loo eego sidii ahayd sanad ka hor sahan baaritaankan oo ay qayb ka qaateen 1505 qof ayaa oo ku kala nool gobolada Banaadir Baay Galgaduud Hiiraan Jubbada Hoose iyo Nugaal ayaa lagu ogaaday in boqolkiiba 19 ay hoos u dhacday kalsoonida shacabka ay ku qabeen madaxweynaha marka loo eego sanad ka hor halka tan ra'iisul wasaare Khayre ay hoos u dhacday boqolkiiba 21 waxa iyana hoos u socota kalsoonida shacabka ay ku qabaan laamaha dawladda federaalka sida baa la yiri baarlamaanka oo kalsoonidii lagu qabay hoos u dhacday boqolkiiba 23 golaha wasiirada ayaa iyaguna hoos u dhac ku yimid boqolkiiba 37 hayeeshee kalsooni darrada ugu weyn ayaa la sheegayaa inay ka jirto cadaaladda oo boqolkiiba 43 kalsoonidiisu hoos u sii leecayso amniga oo ah baahida ugu weyn ay haysata shacabka Soomaaliyeed ayaa iyaduna u muuqata in ay dadku arkaan mid gaabisa oo dib u socoto sida aad hadaba qiyaasi kartid waxa arintaasi ay saameyn ku yeelatay kalsoonidu uu shacabku qabo laamaha amniga sida booliska oo 13 haysta iyo ciidamada oo iyaguna 25% lagu qiyaasay waxa kale oo la xusay in askarta ku sugan maamul goboleedyada looga kalsooni badan yahay marka la barbar dhigo kuwa ku sugan magaalada Muqdisho hadaba haddii aanu eegno warbixinta oo lagu soo bandhigay maanta magaalada Muqdisho ayaa lagu sheegay in muwaadiniinta Soomaaliyeed ay badankood ama intooda badanba ay qabaan in wadanka uu ku jiro jiha wanaagsan boqolkiiba waxa inta sheegtay 48 ayaa sidaasi tiri sidoo kale haddii aanu eegno kalsoonida madaxda maamul goboleedyada ayaa guud ahaan hooseysa madaxweynayaasha ugu kalsoonida badan waa kuwa koonfur galbeed kaasoo haysta 55% iyo Jubbaland oo 52% haysto halka uu madaxweynaha Puntland 31 noqonaya kan ugu kalsoonida liita wasiirka warfaafinta Soomaaliya Daahir Maxamuud Geele ayaanu weydiinay siday u arkaan baaritaankan oo ah kii ugu horeeyay ee Soomaaliya gudaheeda laga sameeyo waxa uu yiri arrin aan soo dhaweynayna waa natiijooyinka ka soo baxay waa natiijooyin aan ka shidaal qaadanayno meelo badan ka fiiran dabcan natiijada cilmi baarista ka soo baxdo ma aha xukun maxkamadeed oo wax laga taabtaan ah laakiin waa aragti aqoon huwan oo habboon in inta la tixgeliyo wax lagu saleeyo natiijooyinkaasna annaga laba baan ka fahmaynaa meelo aad iyo aad loo tilmaamay dawladda waxqabadkeeda oo tilmaamayso oo aan rabno inaan sii xoojinno iyo meelo dhaliilo muujinayo ama hoos u dhac muujinayo oo aan rabno inaan buuxino laakiin isku soo celcelis qodobka ugu muhiimsan oo ka soo baxay cilmi-baarista waxa uu yahay in dadka Soomaaliyeed aqlabiyadiisu aaminsan yihiin dawladda Soomaaliya direction sax ah inay wax ku wado وهجاج دلك إندونيسيا ترى دتك إلا إيه هذا الحقيقي إن أي كورنتين سونامي يدل جرير كيس حقيقي أي على شيء إن أي كورو دافتي كن يسدح بقول أوقف
waxaa gargaar degdeg ah u baahan ilaa 190,000 oo qof. howlaha samata bixinta ayaa waxaa hakadgeliyey qalab la'aan. deegaanka Palu oo ahaa meesha sida xun u burburay ayaa dukaamadii la bilaqaystay. wariyaha BBC-da Jonathan Head oo jooga Palu ayaa arkay booliska oo ridayay rasaas digniina iyo sunta ilmada keenta oo ku ridayay dad u soo baxay oo doonayay inay alaabo ka qaataan dukaan yar. wuxuu wariyuhu sheegay in booliska ay isku dayeen in ay joojiyaan dadka alaabada qaadanayay. mid ka mid ah oo dadka ayaa u sheegay wariyaha in ay mas'uuliyadooda tahay inay difaacaan dukaanka, laakiin muxuu ka qaban karaa iyadoo dadkii ay baahi hayso. haddaba dhulgariirkan ayaa oo cabirkiisu ahaa 7.65 cabirka dhulgariirka waxa uu 4 maalmood ka hor ka dhacay jasiiradda Sulawesi. shaqaalaha samafalka ayaa gaaray dhulka aadka u fog. duleedka Palu waxaa maanta laga helay meydka 34 arday oo ku hoos jiray burbur kaniisad ay dhiiqo aastay. waxa ay ka mid yihiin 86 arday oo la la'aa. hay-adaha gargaarka ayaa BBC-da u sheegay in ay weli ku jiraan howsha soo saarista meydka. waxa ayna sheegayaan in xaaladda dhiiqada deegaanka aad u jiraan. aan ku noqdo halkaasi waxa ay leeyihiin in xaaladda dhiiqada deegaanka ay aad u xun tahay. waxay nagu qaadatay bay yiraahdeen 1 saac iyo bar in aan lugayno. taasina waxay sii adkaynaysaa howsha mashruucan. waxaa jirta cabsi ah in ay jiraan dad badbaaday oo weli ku hoos go'doonsan burburka guryaha. haddaba Farxaan Maxamed Jimcaale ayaa ka warramaya. hawada sare ayaad ka dareemi kartaa xaddiga burburka halkan Palu ka dhacay iyo hawsha baaxadda leh ee hortaal qolyaha badbaadada. in ka badan 48,000 oo qof ayaa guryahoodii aan ku laaban karin. qaar badan waa ay ka burbureen. halkani waxay ahaan jirtay jid laami ah. dadka deegaanka ayaa sheegaya in dhulku dhowr mitir kor u kacay oo guryihii uu liqay. carradii ayaa kacday oo guryihii qarisay. waxaan is idhi haddii tani tahay geeridaadii maxaad qaban kartaa? alle baan baryay. markii hirarka waaweyn ay ku dhufteen xeebta Nuwero waxay la carartay 2 carruur ee ugu yaraa. nafteena ayaan la baxsanaynay, hirarka ayaan ka ordaynay. wuxuu ahaa tartan noo dhaxeeya annaga iyo mawjadaha. waxayna ahayd naxdin. goormaana loo soo gurmanayaa oo dawladdu xaggeena soo eegi doontaa. magaaladu waa shidaal la'aan. dadka ayaa saacado safaf ugu jira intii yarayd ee hartay. xaalkoodu wuu liitaa. waxaana ay isku dayayaan in ay burburka kala dhex baxaan wixii qiimo leh. waxaa jiray bililqa badan iyadoo dadku ay qaadanayaan wixii ay u baahdaan. buuraha korkooda dawladdu waxay ka qoday qabuuro wadareed lagu duugi karo kumanaan qof si looga hortago cudurro inay faafaan. iyadoo xaaladdu ay ka sii darayso, dadku waxay isku dayayaan in ay halkan isaga baxsadaan. dad badan ayaa isugu yimid garoonka Palu oo burbur uu soo gaaray si ay magaalooyinka ugu dhow ugu raacaan diyaaradaha militariga iyo kuwa ganacsiga. wahagaag bal markaan haddii aanu eegno qodobo kale oo ku jira wararka caawa. dowladda Shiinaha ayaa ku eedeysay Mareykanka inuu wado daandaansi kadib dhacdadii isku dhaca ahayd ee badda koonfurta Shiinaha. Shiinaha ayaa ku qasbay in markabka wax burburiya ee Mareykanka uu bedelo jihadiisa. markabka ayaa sida ay Washington sheegtay waday dhaqdhaqaaq caadi ah. marwada koowaad ee dalka Mareykanka Melania Trump ayaa booqasho 2 maalmood ah ku tagtay magaalada Accra halkaas oo ay kula kulantay dhigeeda Ghana Rebecca Akufo-Addo. waa lugteedii ugu horeysay safar 4 dal oo Afrika ah ay ku tagi doonto. waxay sidoo kale booqan doontaa Malawi, Kenya iyo Masar. cilmi baaris cusub ayaa soo jeedinaysa in safarka qotada dheer ee cirka lagu tago uu dhaawacyo culus u keeno xubnaha cirbixinada. cilmi baarayaasha NASA ayaa sheegay in shucaac laga yaabo in ugu dambeyntii laga qaado cudurka kansarka. toddobaadkan waxaa laga joogaa sanad kolkii lagu dilay 58 qof xasuuq wadareedkii ka dhacay magaalada Las Vegas ee Mareykanka. warbixintan waxaa ku jira sawir naxdin leh. Qaalib Xasan Baaruud ayaa inoo haya. ma jirto dimuqraadiyad kale oo casri ah oo qoryaha looga jecel yahay sida Mareykanka. haddana khasaare culus uu ka soo gaadho. rasaasta ayaa xabadka igaga dhacday, kadibna caloosha iyo beerka ayay ka sii dustay.
warbixintani ma aha mid ku saabsan kuwii dhintay ee waxay qusaysaa kuwa badbaaday. La kulan Rosemary Melanson waxay ka mid ahayd dadkii ka badbaaday weerarkii ugu xumaa taariikhda Maraykanka. Ku dhawaad sanad waxaa hoy u ahaa cusbitaalkan rasaastii dablaha awgeed. waxaa jira marar badan oo aan dareemayay inaan awood lahayn. ducfi zaa'id ah ayaan dareemay. ninkayga ayaa ila joogay, isaga ayaana garab isiinayay wakhtigan adag. maxaa yeelay waxaa jirta habeenno badan oo aan dareemaya xanuun iyo caafimaad darro. tigirkii ay bandhigga muusikada ku gashay waxaa hadiyad u siiyey gabdhaheeda. xabado iyo argagax. nin dabaq sare saaran ayaa rasaas darandoori ah ridaya. waxa uu dilay 80 iyo 50 ruux. waxa kale uu daqiiqada ku dhaawacay 40 kale. 10 daqiiqadood kadib ayay rasaastii istaagtay. kuwa dhintay waxaa loo dhigay Aasiya baroordiiq, laakiin dhaawaca iyo ehelkooda waxaa saaran culays gaar ah. dhakhtarka Rosemary Matthew Johnson waxa uu fahansan yahay dhaawaca ku hadha qofka marka uu nabarku bogsado. noloshooda oo dhan ayaa isbedeshay, xitaa marka laga soo tago dhaawacyada maskaxiyan soo gaaray ee ay sannado badan qabi doonaan. waxay saamayn ku yeelan kartaa noloshooda oo dhan. ma qaban kartid shaqadii aad caadiga uga shaqaynaysay haddii aadan lahayn caymiska naafada. macnaheedu waa inaad waddooyinka ku noolaan doonto. 10 kun oo qof ayaa sannad walba ku dhaawacma shilalka la xiriira qoryaha. jacaylka uu waddankani u qabo qoryaha waxa uu ka go'an yahay dadkiisa, wuxuuna rogaa guryo xasiloon. abi wanaagsan mar labaad weli waxaad daawanaysaan caawa iyo caalamka. waaniga maxamed cabdi xaraare. balan idin xasuusiyo qodobada caawa wararkeena ugu waaweyn. daraasad ay si wada jir ah u sameeyeen hay-adaha Ipsos iyo Farside Africa ayaa lagu sheegay in kalsoonida shacabku qabaan madaxda iyo hay-adaha Soomaaliya ay hoos u dhacday. in ka badan 1300 oo ruux ayaa ilaa iyo iminka la ogyahay inay ku dhinteen dhulgariirka Indonesia. inta badan waxaa lagu aasay xabaalo wadareedyo. sida aad warbixinta qaybta hore ku daawateen, hay-adaha Farside Africa iyo Ipsos ayaa cilmi baaris si wada jira ay uga sameeyeen kalsoonida shacabka Soomaaliyeed ay ku qabaan dowladda dhexe iyo maamul goboleedyada. cilmi baarista ayaa laga sameeyay 6 gobol, waxaana dadka laga weydiiyay aragtidooda ku aadan dhaqaalaha iyo ammaanka iyo kalsoonida ay ku qabaan dowladda iyo hay-adaheeda. 42% dadku waxa ay qabeen in dhaqaalaha sanadkii la soo dhaafay uu hakad ku jiray, halka 48% ay qabaan in jiha fiican uu dalku ku socdo. cabdirasaaq aadan waa gudoomiyaha hay-adda Farside Africa, wuxuu qadka si toos ah uga jiraa magaalada Muqdisho. cabdirasaaq ku soo dhawo BBC Somali. haddii aan ku weydiiyo su'aashayda ugu horeysa, maxay ahayd ujeedada cilmi baaristan yaa samaalgeliyay? bismillaahi raxmaani raxiim. bahda BBC aad baad u mahadsantihiin. marka koowaad hadafka aanu ka lahayn baaritaankan waxa weeye inaan ogaano aragtida shacabka Soomaaliyeed uu ka qabo dowladda Soomaaliya, iyo inaan ogaano ilaa xad inta shacabka Soomaaliyeed ay ku kalsoon yihiin dowladda. ujeedada ugu dambeysana waxa weeye in la abuuro dhaqan ah in dadka la weydiiyo aragtidooda intii siyaasiyiintu ay kaligood isku mashquuli lahaayeen. waa gartay intaan su'aasha kale ku weydiinin, waxaan doonayaa in ay iga jawaabto yaa maalgeliyay in la sameeyo cilmi baaristan. cilmi baaristan waxaa maalgeliyay hay-adda la yiraahdo Ipsos iyo Farside ayaa maalgeliyay. ayagaana macluumaadkan isku taklifay inay raadiyaan. waxaa saldhig u ah hay-adda Ipsos iyo Farside-ba madax banaani kaamil ah oo ku saabsan baaritaankan. cid kale oo maalgelisana ma jiro. waa gartay cabdirasaaq. warbixin noocan oo kale ah maanan arag oo aad soo saarteen 2007 waxaadna isbarbar dhigaysaan markii madaxweyne Farmaajo la doortay, yaad barbar dhigaysaan iyo hadda.
mar haddii la eego markaasi waxay ahayd mar doorasho la galay oo dadku ay aad u faraxsanaayeen iminkana shaqooyin baa lagu jiraa midda kale warbixin kalena ma haysaan aad barbar dhigtaan sidee go-aanka halkay ku gaarteen dhahaya kor buu u kacay hoos buu u dhacay walaal warbixin ayaa jirta ay baaritaan la sameeyey warbixintaasna waxaa sameeyey dabcan Farsight iyo Ipsos warbixintaasna waxaa la sameeyey 2000 ama 2017 ayaa la sameeyey markii ay ahayd bishii 8aad warbixintaasna waxaan ugu tala galnay in la ogaado ilaa xad dadku intay taageersan yihiin madaxweyne Farmaajo markii la doortay dabcan waad garan karaysaa farxad badan baa jirtay madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo aad baa looga dabaaldegay meelo fara badan oo Soomaaliya kamid ah kalsoonidu aad bay u badneed marka si confidence index ama kalsoonida loo sameeyo baaritaankeeda waxaa laga maarmaana in lagu jimeeyo baaritaan kale oo sanadkii hore marka baaritaankaas cidii u baahata waan la wadaagi karnaa goortaas aan ayaana sameeyno wuxuu ku saleysnaa kalsoonida dadka Soomaaliyeed ay u qabaan madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo markii la doortay waa maasanta Cabdirasaaq haddii aan su'aal kale ku weydiiyo Soomaalidu waa ognaho waxay wax ku cabiraan ama qiiro ama nin jeclaysi arrimahaasi sidee uga fikirteen markaad sameeynayseen warbixinta walaal waa runta run ahaantii waxyaalaha aan ka duulaynay kamid ahayd sidaad la socoto shirkad caalami ah oo 50 sano ka badan oo London iyo Paris iyo meel walba ka jirta iyo Farsight ayaa waxay sameeyeen heshiiskaasna wuxuu ku saleysan yahay in la sameeyo baaritaan cilmiyeysan oo qeex macnaha nin jeclaysi iyo qabiil jeclaysi iyo qof jeclaysi iyo ay ka madax banaan yihiin taasa waxay keentay shirkadda caalamiga ah Ipsos iyo Farsight inay arrimahaas ku midoobaan sidaad la socotana dad kala duwan oo ama Soomaali ha ahaadeen dadka fikradda bixiya laakiin dadka macluumaadkan iyo cilmi baarista ka soo shaqeeyay waxay isugu jiraan dad ajnabiya oo kala duwan kuwa Afrikaana iyo kuwa Yurubiyaana shirkadda Ipsos Sinevadna Faransa iyo Paris iyo meel walba ka jirtaa Afrikana meel badan ay ka jirtaa marka waa shirkad iyo Farsight ku saleysan madax banaani daawadayaashu way sii eegi doonaan shirkadda iyo waxyaabaha ay qabato haddii aan su'aal kale ku weydiiyo cadaaladda iyo musuqmaasuqa kale si fiican uma aadan bayaamina heer intee leeg bay u dhaceen kuwaas hoos markii aad toos u abaarto labada arrimaha cadaaladda markaan ka soo qaadano kale horta marka hore waxaa laga maarmaana in la ogaado goboladu inay kala duwan yihiin aragtidana ay ku kala duwan yihiin مثلا arrimaha cadaaladda oo kale gobolka Garowe ama Nugaal oo kale ama مثلا marka laga hadlayo Jubbada Hoose Kismaayo iyo Muqdisho marka laga hadlayo way kala duwan yihiin cadaaladda markii la fiiriyo ilaa iyo macnaha 37 ilaa aad bay macnaha hoos ugu dhacday marka la fiiriyo مثلا gobolka Banaadir oo kale xagga maaragta cadaaladda taasna waxa keenaysa dadku inaysan ku kalsooneen garsoorka iyo maxaakimta loona baahan yahay in hawshii laabo sidii loo soo ceshan lahaa maaragta kalsoonida dadka Soomaaliyeed ay ku qabaan garsoorka arrimaha ku saabsan musuqmaasuq oo kale ilaa xad dadka Soomaaliyeed waxay rumaysan yihiin musuqmaasuq inuu baaxsan yahay inta rumaysan cadadka rumaysan inay dawladdu dhab ka tahay inay musuqmaasuqa wax ka qabanaysana waxay leeyihiin numberkooda 48 oo 50 way ka yartahay laakiin haddana waxaad ogaataa musuqmaasuqu waa jiro aad u ballaaran oo soo jireena Soomaaliyana laftigeeda aan qaas ku ahayn wadamo badan Afrika ka jirta laakiin haddana maamulo ka horeeya jira dawladda Soomaaliya hadda jirta laakiin waa cudur dadka oo dhan Soomaaliyeed u yaala dawladda iyo shacabkaba sida loola dagaalan lahaa musuqmaasuqa waa gartay Cabdirasaaq haddii aan su'aasha ugu dambeysay ku weydiiyo caqabada ugu weyn ee hadda ay habboon tahay in laga hortago waa saddex arrimood weeye midda koowaad dadka Soomaaliyeed nabad sida loo helo waxay u baahan yihiin cadaalad sida macluumaadkan iyo baaritaankan ku saleysan tahayna waxa weeye dadku kalsooni kuma qabaan in arrimaha cadaaladda xoog la saaray oo wax laga qabto waxay u baahan tahay dawladdu inay xoog saarto sida wax looga qaban lahaa maxkamadaha dadka Soomaaliyeed ama ha noqdeen kuwa dareemahaya inay hantidoodii dhibaato ama laga haysto kuwa u baahan macnaha waxyaalo fara badan baa jira oo dadka Soomaaliyeed ay tirsanayaan marka cadaalad baa loo baahan yahay cad sidaas darteed arrimaha kale oo iyadana loo baahan yahay wax laga qabto waxa kamid ah
arrimaha amniga khaasatan magaalada Muqdisho kale boqolkiiba 35 ayaa rumaysan cabdirsaaq waqtiga ayaa qabtay aad iyo aad ayaan kuugu mahad celinaynaa inaad barnaamijka nagala soo qayb gasho mahadsanid walaal wagaag haddii aanu eegno wararka ciyaaraha ee caawa ciyaaro waaweyn oo Champions League ayaa caawa dhacaya Man City ayaa la kulmaysa Hoffenheim oo ah magaalo ay ku nool yihiin in wax yar ka badan 3,000 oo qof Man City oo lugtii ugu horeysay guul darro kala kulantay Lyon waxay caawa u baahan tahay natiijo wanaagsan kubadda cagta ayaan weli ku jirnaa maamulaha Manchester City Pep Guardiola ayaa beeniyay warar sheegaya in naadiga qorsheynayo inay 260 milyan oo dollar ku soo iibsadaan Kylian Mbappe oo u ciyaara PSG shirkadaha Netflix iyo Amazon ayaa India ku galay tartan adag si ay u kordhiyaan dadka daawada filmo badan oo guryaha lagu sameeyo ayaa bogaga internetka lagu daawadaa iyagoo ay dadku bilaabayaan baro ay leeyihiin ay muuqaaladooda ku soo bandhigaan haddaba sidee ganacsiga musalsalada India arintani u bedelaysa Aisha Afrax ayaa eegaysa hindida waxay ku dhagan yihiin tiro shaashadaha yaryar oo ka badan kumanaan oo malaayiin ah taasi waxay tahay in baahi weyn loo qabo waxa lagu daawanayo halkani waa stuudiyo dusha ka furan oo ku yaala Mumbai waxay duubayaan filim lagu daawanayo bogga internetka waa mid ka mid ah tobanaanka musalsal ee la sameeyo Arunodhi Singh kaalimo yaryar ayuu ka jilay filimada Bollywood balse halkan hoggaan ayuu ka yahay jilayaal iyo qoryaalba waxaa jira fursado badan oo had iyo jeer wanaagsan waa ganacsi cuna goys ah way fiican tahay in la haysto fursado badan oo lagu sameeyo waxyaabo tayo leh internetka waxa uu wax ka bedelayaa sheekooyinka Maya 2 waa bandhig ka hadlaya jacayl dhexmaray dadka isku jinsiga ah waa mowduuc ay aad u adag tahay in lagu daawado shaleemooyinka iyo telefishinada Hindiya faafreebka adag dartiis maaweelada internetkase lama xukumo waxaan leeyahay awood aan ku soo bandhigo sheekada saxda ee aan doonayo anigoo aan waxba ka bedelin waa sida dareen cusub oo xorriyad waa sida madax bannaani Indian Box waxaa lagu iibiyaa tikidhada filimada dagaalka ama jaceylka oo inta badan ay jilaan xidigaha ama dadka ka soo jeeda qoysaska filimada ee kaalinta weyn ku leh filimka barnaamijyada waqtiyada ugu fiican telefishinka inta badan waa sheekooyinka qoysaska sanado ayayna socdaan waxayna xadeynayaan fursadaha lagu soo bandhigi karo kuwa kale habkan digitalka wuxuu dhabtii sameeyay inuu xor ka dhigay ganacsiga maaweelada India wuxuu shaqo siiyay kumanaan ruux oo Mumbai ku sugaysay fursad wuxuuna sidoo kale fasaxay meel lagu sheego sheekooyin badan shirkadaha shisheeye ayaa arkay fursad ganacsi kadib wax soo saarkeedii ugu weynaa India Netflix ayaa ku dhawaaqday inay dhageystayaasha halkan u sameynayso bandhigyo cusub inta badan istuudiyaasha India waxay sidoo kale leeyihiin fiidiyoyo u gaar ah oo janaaladooda lagu daawado ganacsigan ayaa si weyn ugu tiirsanaa qiimaha jaban ee internetka mobilada kaasoo ka yimid dagaal dhanka qiimaha ah oo u dhaxeeya shirkadaha isgaarsiinta inta ay taasi jirto filim soo saarista way soconaysaa wagaag xusuusno wararkii ugu dambeeyay ee BBC Somali waxaad ka heli kartaan bbc.com/somali inta ayaan ku soo gabagabeynayaa barnaamijka caawa iyo caalamka waad ku mahadsantihiin daawashadiina inta aan mar kale dib u kulmi doono waxaan idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo